السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الكسر دواده kanaalka Learn English with Hassan. magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Xuseen. saaxiibayaal waxaan maanta idin soo diyaariyay barnaamij aad u xiiso badan kaana saacidi doona luqadda Ingiriishka waliba boqolkiiba boqol aan hubo in uu markii aad dhamaysato daawashada muuqaalkan aad wax badan ka faa'iidi doonto. waxaan rabaa marka inaan kula wadaago inta aan sharaxaad u guda gelin inaan waxyaabo kula wadaagaan rabaa. marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa walaal qaali inaad kanaalka subscribe gareyso mid labaadna inaad muuqaalkan aad like gareyso runtii waxba ka dhimayso walaal qaaliya casharkan aadka u qiimaha badan ayaan aniguba waqti ku galiyaa wax laba sekin ka yar ayaad ku sameyn kartaa inaad subscribe taabato like-na aad saarto aad baad u mahadsantahay walaale. marka hore waxaan kuu sheegayaa casharkan aan maanta ku sharxi doono isagoo English ah waxaad ka soo daawan kartaa kanaalka loo yaqaano Sunshine English. run ahaantii aad buu cajiib u yahay waa ka shaashada kaaga muuqdo waxa ciwaan looga soo dhigay fat girl ama gabadhii cayilneed. haddaba isagoo English oo kali ah ayaad waxaad ka soo daawan kartaa kanaalkaas shaashada kaaga muuqdo YouTube-ka aad ku qoraysaa waa ka muuqaalka waxa ku qoran sida hortaada kaaga muuqata title-ka muuqaalka ama waxa ku qoran ayaad YouTube-ka ku qoraysaa kadib markuu ku soo baxana waa daawanaysaa. balse intaadan kaas aadin ayaan haddana wax kale ku hayaa casharkan isagoo PDF oo documenti ah waxaan soo dhigay groupka Telegram-ka Waaye Arag Academy. haddaba groupki waa ka ku soo biir kaliya qaybta surgeon-ka ee Telegram-ka ayaad waxaad ku qoraysaa Waaye Arag Academy sida hortaadaba kaaga muuqato kadibna join ayaad leedahay halkaabaad ka degsanaysaa. run ahaantii waa qiso jacayl oo runaantii beerkaaga taaban doonta insha Allah. wiil iyo gabar waaye isjecel gabadhu way yara cayilan tahay wiilku markaa gabadha cayilan uu jacaylka kala dhaxeeyo ayuu saluugayaa. marka waxaan ku soo sheegay in aad casharka soo daawato isagoo English oo kaliya ah. waxaan kaloon ku soo sheegay inaad kala degto groupka Telegram-ka ee Waaye Arag Academy isagoo PDF kadibna aad akhrisato. haatana aniga ayaa ku sharxaya waliba qaab itus oo itaabsi ah oo aad fahmi karto ayaan ku sharxaya. sharaxaadda markii aad dhamaysato ayaad isagoo English ka soo daawanaysaa meeshii hadda aan ku tilmaamay kadibna waad degsanaysaa waad soo daawanaysaa galabkii koob shaah intaad soo qaadato ayaad akhrisan doontaa insha Allah. waxaan ku hubaa in aad wax badan ka faa'iidi doonto haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo. ku soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay sheekadu marka waxay ku bilaabanaysaa horta sheekada waxa ciwaan looga dhigay being fat inaad tahay mid cayilan is not a crime ma aha dembi. marka gabadhan cayilan iyo wiilkan xiriirka ku dhaxeeyo ayaa sheekadu ku bilaaban doontaa. marka hore gabadha ayaa la qeexaya cidda ay sida ay tahay kadibna hadalka ayaa bilaaban doona meel maqaaxiya bay wada joogan. marka waxay ku bilaabanaysaa she is Rose. iyadu waa Rose gabadha magaceeda waaye. she is very friendly and nice. waa qof saaxiibtinimada ku fiican haddana wacan oo nice ah. friendly waa qofku markuu saaxiibtinimada ku fiican yahay. marka ninkiiba hadalka qaadanaya gabadha xiriirka kala dhaxeeyay in uu xiriir kala dhaxeeyna kuma faraxsana isagu. marka laakiin iyadu aad bay u jeceshahay. sheekadan baadna ku dhex arki doontaa qaabka cajiibka ay u jeceshahay. wuxuu leeyahay you should not eat waa inaadan cunin that cake. dulshahaas waa inaadan cunin buu ku leeyahay. maqaaxid bay wada joogaan markaabay ku leedahay it's my birthday waa dhalashadayda today maanta. markaa buu leeyahay I am your boyfriend waxaan ahay saaxiibka you should obey me waa inaad i adeecdaa. you know waad ogtahay how people sida dadku treat you ay kula dhaqmayaane. markaa bay leedahay I don't care about the world waxba igama gelin dunida. you love me waxaad ugu jeceshahay the way I am sida aan ahay. the way habka ama sida I am aan ahay ayaad ugu jeceshahay. adduunka intiisa kale waxba igama gelin bay ku leedahay. markaa buu ku leeyahay I don't love you kuma jecli I am with you waxaan kula joogaa because maxaa yeelay you are rich qani baa tahay. qaninimada darteed baan kula joogay kuma jecli buu ku leeyahay ayuu leeyahay. يعني هذا الكاس هوس بوضعها يدو ما مقليسو وحنا قصة جعيل ولا جلي ومقطع مركابي اللي ده هاي what are you thinking ما حد كفكريسا honey ما حد كفكريسا أي لا ده هاي مركابي له nothing وهو happy birthday again مركله دل شوعان قاب جاس أيو ليه هاي مركب حليه let me pay and بحيه the bill لعكته this time وقت كان biilka anigu aan bixiyo biil waxa la yiraahdaa maqaaxida markii aad wax ka cuntiin lacagta la bixinayo qaanta aba leeyahay. marka wuxuu leeyahay let me pay and bixiyo the bill biilka anigu aan bixiyo
this time markan ama waqtigan markaabay ku leedahay may wuxuu leeyahay you always pay hadi jeer waxaad bixisaa the billka hadi jeer adiga bixiye bal maanta aniga bixinaya buu ku leeyahay maxay dhihi doontaa marka sida caadiga ah markuu sida yira waxay dhihi jirtay iska dhaaf aniga bixinaye laakiin marka maxaa lagu jawaabay I won't stop you kuma joojinayo this time markan kuma joojinayo yani bixi baa leeyahay waa laga aamusay marka ninkanina nin 1 shilin jeebkiisa oo ku jira ma ahan waa sheet marka wuxuu islahaa iska dhaaf aniga bixinaya lagu dhahaa laakiin markan kuma istaajinay baa lagu yiri marka buu yiri oh no alla maya I can't afford ma awoodo inaan bixiyo this expensive restaurant maqaaxidan qaaliga ah expensive waa qaali afford waa inaad wax shay inaad bixiso inaad awoodid marka bay ku leedahay what happened honey maxaa dhacay honey are you okay caadi ma tahay bay ku leedahay okay ma tahay marka buu leeyahay I'm so sorry honey aad baan kaga xumahay honey I forgot my wallet and borsadeedii lacagta ayaan waxaan ku soo ilaabay at home guriga waxba soo ma uusan ilaabine ninku waxba ma hayo marka I forgot waxaan soo ilaabay my wallet and borsadeedii lacagta at home ayaan guriga ku soo ilaabay I feel so embarrassed waxaan dareemayaa waxaan aad u dareemayaa wajiga wax baan dareemayaa buu ku leeyahay marka bay leedahay it's fine honey waa iska caadi honey I will pay the bill aniga ayaa bixinaya billka aad bay u jeceshahay iyadu markaaba isagoo sirsiranaya wuxuu ku leeyahay thanks honey mahadsanid I love you waan ku jeclahay markaaba leedahay I love you too sidoo kale aniguna waan ku jeclahay let's go to the disco now and in amari aynu aadne let's go and aadno to the disco now hadeer aan aadno disco waxa la yiraahdaa meesha lagu caaweynayo qoobka ciyaarka lagu sameeyo ayaa la yiraahdaa marka way baxayaan meeshii bay tagayaan marka isagu gabar cayilanoo buuran inuu qoobka ciyaar la sameeyo kuma faraxsana wax yar oo isnuxnuuxinaya marka bay leedahay are you having fun ma baashaalaysa bay ku leedahay marka isagoo yani tartiib u hadlay wuxuu leeyahay ha buu leeyahay marka laba qof oo gadaashooda fadhiyo ayaa xamanaya waxay leeyihiin hey look haye fiiri bay leeyihiin she is a balloon waa buufin bay leeyihiin qoftaani markii kale hadana wuxuu leeyahay no she is a bulldozer iyadu waa baldoos ayuu ku leeyahay way xamanayaan yani gabadha ma gabar aad u buuran marka bulldozer waxa laga wadaa midkaan baa loo yaqaanaa midka beeraha lagu falay aadka u weyn ayaa la yiraahdaa marka kaabay ogtahay buu leeyahay qofkii kale gadaasheeda fadhiyaan way xamanayaan marka iyadu waxaas dhigjaal ma siinayso ma maqlayso mar kale saaxiibkeed la hadlayso waxay leedahay honey let's dance together aynu u qoobka ciyaarno si wada jir ah let's dance aynu u qoobka ciyaarno ama aan u jaasno together si wada jir ah marka buu leeyahay no honey maya honey I'm fine waan fiicanahay let's sit there aan halkaa fadhiisano buu ku leeyahay yani kuma faraxsanaba inuu gabadhan uu la istaaga meel wuxuu arkaaba xibbu arkaaba marka buu leeyahay but I really want it laakiin run ahaantii waan doonayaa to dance inaan jaaso it's my birthday waa dhalashadayda please fadlan markaabuu si hurweyta ah buu ogolanaya wuxuu leeyahay okay marka way dance garaynayaan isagoo isnuuxinaya kuma faraxsano marka iyadu waxay leedahay it's so amazing aad bay cajiib u tahay marka wuu daalayaa marka wuxuu leeyahay wuu ku daalayaa wuu ku caajisaya wuxuu leeyahay can we just go home ma aadi karnaa hadda guriga I am tired waan daalay ayuu ku leeyahay muxuu daalaa wax yar buu la qoobka ciyaaray markaaba ileen way jeceshahay okay honey haye honey bay ku leedahay banaanka u soo baxayaan gaariga intaysan raacin bay arkaysaa inuusan ku faraxsanayn markaaba leedahay what happened honey maxaa kugu dhacay honey markaaba wuxuu ku leeyahay you will eat salad waxaad cuni doontaa ansalaatada from now on hadeer laga bilaabo ansalaata ayaad cunaysaa buu ku leeyahay cunto kale kuma ogoli markaaba leedahay I've been eating salad waxaan cunayay saladka for the last month bishii la soo dhaafay I go to the gym one aada gymka as well sidoo kale markaaba leeyahay you are still an overweight wali waxa tahay you are still wali waxa tahay an overweight qof culeyskeedu zaid yahay markaaba ku leedahay wuxuu u sii darayaa I feel embarrassed wajiga waxaan dareemayaa with you la joogitaankaada markaaba ku leedahay why are you saying that maxaad u leedahay midaas it hurts me way dhaawacaysaa honey way dhaawacaysaa sidaas maxaad u leedahay markaaba leeyahay listen dhageyso you have to lose wa inaad ridaa
wait culayska waana iska ridaa otherwise haddii kale I will leave you waan kaa tegi doonaa markaa bay ku leedahay please fadlan don't leave me ha iga tegin I can't live ma noolaan karo without you adiga la'aanta waxay leedahay I will lose waan iska ridayaa my weight culayskayga markaa buu leeyahay okay fine haye way fiican tahay see you tomorrow berri baan is arkaynaa buu ku leeyahay markaaba marka way soo baxaysaa gurigii bay tagaysaa gurigii markay tagto meel bay iska fadhiisanaysaa iyagoo murugaysan baa walaasheeda u imaanayso markaa bay ku leedahay hey sister haye abaayo did you have fun ma soo baashaashay bay ku leedahay markaa bay leedahay cod hoose waxay ku leedahay yes I did waan soo baashaalay markaa bay walaasheed dareemaysaa in wax ka khaldan yihiin waxay leedahay what happened maxaa dhacay did he say something again mar kale miyuu wax ku soo yiri يعني هرو هذا الله حن أصديه جري ولا شيء نوال سعطة إن قبلنا الله دلته مرة بويل كان أستنير مركو حكتري did he say something again مركل مية وحسويري مركابي كتري he wants me وحقد دنيا to eat إن عنه salad كإن عنه and walk out سمايا أما جمعسي every day مالي ولا بس ده بقد دنيا مركابي كل ده salad is not enough كوجما فيلنا for health عافيمات أهان you will get sick waad ku jiranaysaa ama waad ku xanuunsanaysaa markaa bay ku leedahay he likes wuxuu ka helaa thin girls gabdhaha caatada ah buu ka helaa I really love him run ahaantii aniguna ana si dhaba baan u jecelahay bay ku leedahay markaa bay waxay weydiinaysaa does he love you isagu ma ku jecel yahay markaa bay leedahay yes he loves me a lot aad buu u jecel yahay intuu ka jecel yahay wuu ku danaysayo hayahay miskiinta markaa gabadhii la dhalataa waxay leedahay wrong khalad bay ku leedahay he is using you wuu kugu danaysanayaa erga using waa isticmaal laakiin wuu ku isticmaalayaa ma dhahin wuu kugu danaysanayaa baynu leenahay being fat in aad noqoto mid cayilanna is not a crime ma aha dembi it's not your fault khaladkaaga ma ahan fault waa khaladkaagi ma ahan inaad adigu mid cayilan noqoto waxay u raacanaysaa if he really loves you hadduu si dhaba kuu jecel yahay then kadib he should accept you waa inuu kugu aqbalaa the way sida you are tahay sida aad tahay waa inuu kugu aqbalaa markaa bay qiil u raadinaysaa ileen way jeceshahay waxay ku leedahay no sister maya abaayo it's not like that sidaas ma ahan he just cares about me keliya uu iga taxadirayaa bay ku leedahay markaa bay leedahay let's see aynu aragno bes gabadhii way baxaysaa miskiinta ahayd yara xoogaa yara cayilneed jimkii bay aadaysaa isaga dartiis isagaa ku qasbay mogtahay jimkii markay tagto iyadoo meel exercise ku samaynayso ayaa laba gabar oo gadaasheeda exercise ku samaynaya oo xamanaya ayaa maqlaysaa oo hadalkan isdhaafsanaya labadii gabdhood baa waxay leeyihiin hey ana how was your date sidoo ahaa shukaansigaadii with Peter wiilkan Peter la leeyahay aad la yeelatay last week isbuucii la soo dhaafay wiilkana waa wiilka gabadhan jimka ku soo qasbay miskiintan oo qiyaamaya waa nin shabeelnaagood wax Soomaalidu u taqaano gabdho badan isku dulwado marka labadan gabdhood oo ku sheekaysanayo ayay maqlaysaa waxay leedahay wiilkan Peter la leeyahay sidoo ah shukaansigiina isbuucii la soo dhaafay marka bay tii kala waxay leedahay he is a player isagu waa ciyaartooy he cheated on me waa khiyaamay he is going to meet wuxuu doonayaa inuu la kulmo Sarah gabadha Sarah la leeyahay tonight waa gabar kale oo la balansan yahay inuu la kulmo labadii gabdhood baa isku sheegay iyadana waa maqlaysaa hadalkaas gabadhii kale waxay leedahay really runtii I'm so sorry waan ka xumahay to hear that inaan sidaas maqlo marka gabadhii ay fiirinayaan haddana waxay leeyihiin look at that fat girl fiiri gabadhaas buuran how ugly she is sida ay u foolxun tahay ugly waa foolxumo markaaba tii kale waxay leedahay yes do you know ma ogtahay Peter wiilkan la leeyahay ayaa is using ku danaysanaya this girl gabadhan as well sidoo kalena wuu ku danaysago hayaa gabadhan bay leeyihiin marka hadalkii way u adkaysaweynaysaa way ku jeesanaysaa waxay leedahay what are you saying maxaad dhahaysiin bay ku leedahay markaaba loo sheegaya waxay ku dhayiin Peter is using you wiilkaas wuu kugu danaysayo hayaa he is going to meet wuxuu doonayaa inuu la kulmo Sarah gabadh la yiraahdo tonight he is a player isagu waa ciyaariyahan yani waxa loo jeedaa waa shabeelnaagood waa gabdho badan buu la ciyaaraa yani everybody gabdho fara badan dadka everybody cid walibana knows him way ogtahay baa lagu leeyahay markaa bay haddana qiil bay u raadinaysaa ilaa aad bay u jeceshahay waxay leedahay you are lying been baad sheegaysiin he can't deceive me
ima khiyaami kara bay ku leeyihiin markaabay waxay leeyihiin he will be at the bar caawa wuxuu joogi doonaa baarka buu joogi doonaa tonight caawa Sarah gabadha leeyahayna ayaa told us noo sheegtay you can go waad aadi kartaa and see waadna arkaysaa everything wax waliba markaabay haddana qiil kale u sii raadinaysaa waxay leedahay she could be her friend wuxuu noqon karaa saaxiibkeed buu noqon karaa yani saaxiib caadi buu noqon karaa waxba ma aan hadduu la kulmo markaabay ku leeyihiin believe amin or not ama ha aaminin we don't care waxba nagama gelin markaaba kaamirada inta la qaado ayaa kaamiradu waxay dul tagaysaa markan wiilkii Peter ahaa oo gabadhii Saara ahayd maqaaxidii la jooga ee hadallo qurux badan ku dhahaya baan markaan gudagalaynaa saaxiibka gabadhan buu la joogaa midaan ayuu haddana u sheekeynaya wuxuu leeyahay you are so beautiful aad baad qurux badan tahay I love you waan ku jecelahay iyana waxay ugu jawaabaysaa really runtii markaa buu leeyahay yes ha I can't live ma noolaan karo without you adiga la'aanta you are my heartbeat waxaa tahay wadnahayga garaaciisa heartbeat garaaca wadnahayga baa tahay hadalka isagoo ku dhahaya gabadhii maqaaxida la joogo ayaa waxaa imaanay gabadhii Rose ahayd hal mar ay gadaashiisa intay soo istaagtay bay ku leedahay Peter ay leedahay markaasuu soo jeesanaya intuu isku naxo oo laba taaka ka qarxo ayuu soo jeesanaya markuu leeyahay Rose what are you doing here Rose maxaad ka samaynaysaa halkan iyana waxay leedahay what are you doing here maxaad ka samaynaysaa halkan bay ugu jawaabaysaa gabadhii miskiinta ahayd who is she waa tuma iyadu ayay leedahay waxay weydiinaysaa gabadhan ula fadhiya waa tuma markaabay tiiba intay soo istaagto ayay leedahay who are you kuma tahay qaab isla weyne ku jirto how do you know Peter sideed ku baratay Peter markaabay leedahay Peter is my boyfriend isagu waa saaxiibkay bay ku leedahay what ayay ku leedahay gabadhii meesha fadhiday markaaba isagii baa hadalkii qaadanaya markaan meesha ugu xun waa tana wuxuu leeyahay why are you lying maxaad beenta u sheegaysaa I don't know you kuma garanayo fat buffalo waxaa la yidhaahdaa sug waan idin tusayaaye lo-daan duurjoogta ele buffalo lo kisi baan u garanaynaa inagu marka fat buffalo lo kisi yahay cayilani kuma garanaye maxaad beenta u sheegaysaa buu ku leeyahay markaasay leedahay what did you say maxaad dhahday you don't know me ima garanayside how could you do this to me sideed sidaan iigu samayn kartaa markaasaa gabadhii uu la fadhiyay maqaaxidaba waxay leedahay hey fadi haye shuluqda ama gabadha cayilan why are you accusing maxaad u eedaynaysaa on my boyfriend wiilkan saaxiibkay maxaad u eedaynaysaa he does not like kama helo fat girls gabdhaha cayilane markaa bilada I hate you Peter waan ku nacay Peter you used me waad igu danaysatay for my money lacagtayda you will regret waad ka shalay doontaa one day maalin markaa buu ku leeyahay get lost bax buu ku leeyahay markaasay meesha ka cararaysaa isna kursigii intuu fadhiisto xabad gabadhii kale oo sheekadii u sii wadaya yani xabadii uu la fadhiyay meesha markaa buu ku leeyahay hey honey everything is fine wax waliba way fiican yihiin let's order aynu dalbano something wax dalbana buu ku leeyahay marka gabadhan iyana ma jecla isagay ku danayso haysaa markaa bay leedahay hadalka usoo gagaabinaysaa yeah sure okay bay leedahay and the food was amazing buu leeyahay cunadu cajiib bay ahayd yes it was how way ahead le loogu soo gaabinaya markaaba su'aashan la weydiinaya ninkii honey can you buy me ma ii soo iibinaysaa a new dress labis cusub ma ii iibinaysaa bay ku leedahay markaa buu leeyahay yeah really haarun ahaantii hoosay u leedahay gabadhii marka qiyaamaysa waxay leedahay I don't love you kuma jecli I'm just using you kaliya waan kugu danaysanaya isna kalkiisa lagu danaysanaya markaa buu ku leeyahay let's go ina mari gabadhii miskiinteedu way baxaysaa gurigii bay tagaysaa gurigii markay tagto iyadoo oynaysa gurigii tagaysaa walaasheeda marka arkaysa waxay leedahay don't cry my sister ha ooyin walaashayay he does not deserve you kuma qalanyo he is a cheater waa qiyaanoole markaa bay erayadan aadka u qeyrada banay bay leedahay I loved him so much aad baan u jecelahay isaga markaaba gabadhii walaashada waxay ku leedahay he was not sincere with you isagu daacad kuma uusan ahayn erga sincere waa daacad meeshii ugu dambeysay marka daacad kuma uusan ahayn markaaba erayadan bay leedahay erayada qalbigayga taabta waa kuwan waxay leedahay I quit waxaan uga tagay eating cunitaanka burger waxaa la yidhaha hamburgerka
يعني إنا أريك لو تقاني بالغيابا وعنضنا ولا باجر كليرا isaga dartii for him isaga dartiis ayaan uga tagay cunitaanka burgerka beeladahay I ate salad baan u cunay for him isaga dartiis I made him happy waxaan ka dhigay mid faraxsan how could he do this to me siduu sidan igu samayn karaa marka walaashada waxay ku leedahay this is his real face kani waa wajigiisa dhabta ah marka gabadhi waxay leedahay I feel so sad now aad baan u murugoonaya hadda I can't control ma xakameyn karo my tears ilmadayda ama ilinta iga socota ma xakameyn karo bay ku leedahay aad baan u murugsan tahay after 2 months laba bil kadib hadal farxad leh ayaa dhici doona wiil kale ayay baranaysaa oo maasha Allah daacad u ah oo sida cayilnaanteeda iyo wax walba ay tahay ku rabo marka meel beer ah oo qurux badan iyagoo joogan isagoo ammaanayo ayaa markaan sheekadu ku bilaabanaysaa haddana wiilkii ay xiriirka la samaysatay guursaday oo dhahaya you look stunning ajib bad u egtahay you look waxaad u muuqataa stunning ajib stunning waxa la qofku markuu aad u soo jiidasho badan yahay marka wala thanks mahadsanid you are looking adiguna waxaad u muuqataa handsome mid qurux badan as well sidoo kale hadalkaas markii ay tiraahdo ayaa igaarkii soo qiyaamay gabadhan ee Peter ahaa ayaa imaanaya marka uu leeyahay Rose ayuu leeyahay uu aqoonsanaya marka uu leeyahay hey Peter haye long time no see waqti dheer isma arkine marka uu ku leeyahay how have you been sideed ahayd waxay leedahay I have been good one wanaagsana marka uu leeyahay Rose I am really sorry runaantii waan ka xumahay yani calacal inuu galo doonayay markuu hadalkaas yiraahday waa loo soo gaabinaya where's your girlfriend ali awa gabadhii saaxiibta ahayd marka uu leeyahay she left me way iga tagtay she was using me wayna igu daneysanaysay Rose who is he waa kuma isagu xajigeedii buu weydiinayaa who are you kuma tahay ayuu hadan u raacinaya intaysan iyada jawaabin xajigeedii u jawaabay wuxuu ku leeyahay I am her husband waxaan ahay saygeeda husband ayuu ku qaylinaya hadana ninkii qaylinaya wiilkii marka iyadii baa jawaabaysa markaan yes he loves me wuu jecel yahay a lot in badan he cares about me wana iga taxadiraa baa lagu leeyahay markaasuu ku leeyahay inuu ku diro buu doonaya inuu isku diro ayuu hadana damcaya wuxuu leeyahay don't you feel miyadan dareemayn embarrassed wiji gabax miyadan ku dareemayn with a fat girl inaad la joogto gabar cayilan markaa buu ku leeyahay what are you saying man ninkeedii ama xaajigeedii gabadhan Rose xaajigeedii wuxuu leeyahay what are you saying man maxad leedahay niyahow being fat inaad noqoto mid cayilan it's not a crime ma aha dambi she is the cutest girl waa gabadha ugu quruxda badan in the world dunida waa gabadha adduunka ugu quruxda badan markaa bay leedahay thanks honey mahadsanid you accepted me waxaad igu aqbashay the way I am sida aan ahay I love you so much aad baan ku jecelahay let's go now ina mari hadeer sheekadina halka ay ku soo gabagabaysaa ninkii Peter ahana halka baa looga dhaqaaqajinayaa dacaska ee maqashi ayaa lagu leeyahay halka ayaan ku soo afmeeraya muuqaalka xag inta la gaaro waxaan iskaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah